السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال waad mahadsantihiin dhammaantiina idin ahaantiinba meel walba joogtaan. kusoo dhawaada barnaamij yar oo idin anfici doona kaasoo ku saabsan how to remove virus without software. sideen kombiyuutarkayga u ogaan karaa ama iskaga tirtiri karaa ama aan iskaga bixin karaa virusyada soo gala. how to remove virus without software anigoo aan isticmaalin wax software ah. inkastoo virusku iska badan yihiin because application ama software aad ku install garayso kombiyuutarkaaga xataa hadduusan antivirus ku jirin problem ayaad kala kulmi kartaa. balse aynu aragno hadda how to remove virus without software. qodobkani waa qodob aan hadda rabo inaan idin tusiyo sida loo marayo oo ah oo maana ilaa intaan inkastoo ilaa tan istibiin laakiin inta ugu soo qaatay kaga how to remove virus without software kan intaan qodobaha samaynayo 1 2 3 4 5 oo ah clean mgr 10 bit percentage verified 3. okay daawadayaal ila fiiriya qodobkan waa qodob the best aad u wanaagsan very important ah qof walba computer isticmaalayo waa very important because waa how to interest u xiisanayd adig unbay khusaysaa soo laakiin markaad aragto inshallah san jeclaan doona isticmaalno waa just for the best performance waa qodob very important waan aragtaa inta wuxuu faa'iido leeyahay soo marka inshallah bal yaran practicadan eegno calaamadan ujeeda asoo keenay window start and then run ka dhacdo. so qodobka ugu horeeyaan rabaa inaan soo keeyo wuxuu noqon doonaa talo waa clean mgr clean clean waa clean mgr soo jeedaan fast step weeyaan qodobad waa fast step so that markaad garaacdo run desktopka soo kicine so that markaad soo kiciso again waxaan sameynaya kadib clean mgr qore so ani computerkayga horan ugu soo isticmaalay clean mgr click so qaybtan sida ujeedaa qayb sida wax kale uma soo qabanin qayb sida aan xoogaa yar explanation yar ka bixiyo qaybtan sida because any software oo aad computerkaaga ku install garayso waxa ugu horeeya opposition ka qabsanaya waa computerkaaga qaybta sida weeyaan soo marka qaybta sida marka tusaale ahaan hadda program fileskan haddaad dhageyra siiso oo jeedaa adhawa waa photoshop ku jiro weeyaan sida about software waa barnaamijka soo lagu duubo common fileskan cliplineskan waa kanada lagu duubaya draft bag drafter asaga waxa weeyaan drafti ugu jira aan ku shubay asaga wato kan so that explorer Kaspersky waa antiviruska hadii ugu jiro ofiskan oo waxyaabaha zabiyaha oo jeeda oo ani software oo aan computerkayga ku install garaya oo meesha ugu xogta ku kaysado weeyaan program files so that program fileska marka mar walba waxaa fiican inaad iska yara nadiifiso so marka markaad kaliya mgr qorto so that haddana xaggaan ku keenaya so markuu halkan ku keeno okay aleeda wid samee in yara iska yara sug markaad sugto insha allah waad arki doonaa wid samee. Clean is including how much space you will be able to free on
maybe take few minutes to complete. waxyaabaha qaar uu ka nadiifinayaa computerkaaga si uu space u helo. waynu imaanay soo hadda system quit windows oo kanoo kale oo iskaga daraysaa because wuxuu faa'iido leeyahay male hadduu mar error soo qoro faraha ka qaad kan iska daa deliver optimization file faraha ka qaad. soo waxyaabaha qaar waxaa jiro isaga ku daraayo kan soo jeedkana wax yani ma wato data. soo laakiin kan niles kan u jida 60 adiga 36.2 MB oo data ayuu wataa ujeedaa. soo marka kan ujeedaa internet virus kan uga soo qaadaya temporary internet virus oo virus qaar oo internet soo qaado waana window errorka soo daad marka marba waxaa fiican iskayra hagaajiso clean deh. soo marka clean hata computerada qaar markii lagu fiiriyo waxaa laga yaabaa inaysan caadi ahayn waxyaaba badaan ay ka buuxaan. soo adigoo baraweel eeg fiiri clean deh clean up file way samee only wax yar kadib okay deh. waxay iska sug only wax yar uu aad u nadiifinayaa scanning in all memory time clean up window update. okay clean up wax yar wait samee. soo computerada qaar xataa kuma xirna fa isheeg antivirus. soo marka problemka waxaas keena computerkaaga isku day inaad marba antivirus ku shubto so that okay deh again markaad okay dhahdo failasha miyaan tuuraya ku yes delete file on waxyar sug failashu tuuraya. okay stepkan waan ka yara gudubnay. soo marka stepkan waan ka yara gudubnay stepkan balileed temb first waxaa soo kacsanay application kadib brande kadib run markaa dhahdo waxaad qoray temb markaad qorto wuu yara diyaarsanaa aniga markaan hadda biilka ka tiro wuu diyaarsan yahay soo daad laakiin waan yara qoray temb waa qodobkan waad qoraysaa okay deh. soo marka waana fiirsanay waxaad leedahay right click control a masad hay'ad ku saar leed aduu unsa kurta hay'ad saar. soo marka shift la qabo saysan circle binka kaaga gelin shift delete leh yes adana okay deh. some qaar skip ayuu ku leeyahay so that no problem. وهذا waxyaabaha qaar ay shaqada ku socoto weeyaan no problem. ka gudub iska delete cancel leh marka kan yara gudubnay kanan gelin hadana percentage askari again marka percentage ama percentage ka ana wada computerkayga waan ku yara xoogaa ku isticmaalaa badana so marka okay ku dheh yes askari kursi kadib shift delete shift delete waxaan u dhahayaa data delete waa dhigi kartaa soo dad laakiin shift delete waa dareemi kartaa haddii aan shiftiga la taabto aan delete dhaho yani cycle binki waxba ma galayaan soo laakiin haddii aan delete dhaho kursi cycle binki galayaan soo marka delete iska dheh okay shift delete okay cancel kan marka waxayna haray this step kan oo ujeedaa verify weeyaan soo marka inoo soo ka yaran rande
no problem. Briefage whatasa so that no problem. So that marka waxaan sameynayna briefage sumjid BREFETCH briefage. Okay, then okay deh marka okay dhahdo aniga maan dhigo inaan ku tirayno marka waxyaabaha qaar adiga delete shiftiga laakiin la taabo adoo saas u hayo ama no problem delete iska dheh inkastoo hadda ay iska galayaan okay. So marka waxaa inoo horay this step is include and good job. So hadda tan how to remove virus without software sideen iskaga tiraa viruska anigoo aan isticmaalin wax software qodobkan intaan hoos timaaday. So marka kan ila soco very important waaye. So haddaad computerka aad iyo aad iskugu fiicantihiin ku anfacaya. qodobkan this point is very important. Okay, and how to make adjust for the best performance. qaabkan u sameeyaa adjust for the best performance. So marka ma faa'iido leeyahay aan ku tuso ilaa eeg so that this picture, this is a folder kan introductionkiisa u jeedaa. So waxyaabaha ku jira oon arkaya soo maa waan u jeedaa. So marka this is a folder is PowerPoint. waxyaabaha ku jiro ama introductionkiisa waan u jeedaa inuu PowerPoint yahay again iyo waad waxyaabaha qaar ku jira marka waan u jeedaa soo maa. Kan is a picture inuu sawir yaa u jeedaa no problem. marka qodobkan wuxuu faa'iido leeyahay aan kuu sheegaya. Example, this is a picture background ani picture waad u jeedaa. folder walba wax ku jirana waa dareemi karaysaa soo maa. So marka no problem ani folder introductionkiisa waad u yaro u jeedaa. folderadan u jeedaa kagudub again waxaad timaadaa ujeedaadi sawirada waad arkaysaa soo maa. sawirada tusaale ujeedaa sawir walba introductionkiisa ujeedaa wax ku jiro waad arkaysaa. sawir walba waad ujeedaa soo maa. marka waxaad sameysaa qodobkan wuxuu inaga caawin doonaa tusaale ahaan ani folder introductionkiisa waan ujeedaa. waxa kan ujeedaa marka marmana ku yara dahno how to make adjust for the best performance. qaabkan u sameynaa marka wuxuu faa'iido leeyahay wax kale maahan. tusaale ahaan background markaan galo ilaa aan sawirka keli hadda sawirkaan ujeedaa wuxuu yahay waan arkaa waan ujeedaa. sawir walba waan ujeedaa soo maa. markaa fiirso ani computerkayga magaciyaa ku qoran Hussein waaye. So marka adi PC inay kugu qorantaan jeclahay haddaadan edit garaynaan magaca ku qoran no problem. property leh kana right click and then property again and advanced system and settings. good advanced waa taagan yahay. choose the setting adjust for the best performance. look us adjust for the best performance dooro. markaad doorato waa jeeda adjust for the best performance. markaan doorto halkan waxaad ka raadinaysaa show shadow under the mouse pointers. qodobkaana dooranaya. look us qodobkaana dooro waa jeeda qodobkaana dooranaysaa. launchcan show shadows under mouse pointers. click see. okay, customer maada soo jeed customer yimid apply de again. okay, cancel marka iska yara cancel. so marka
What is picture? Kan mana picture وأنا بسوريا لكن ما أعرف كان أوي حنا نمشي سوا فولدر كان داي سي فيديو حاول كتير بقدر حاول كتير ما أعرف سوا أجين نجي صورة مركز صورة نجي سو أجين حد أكتب background scale so مركز background look as this picture if I click إلا أن click له ماركو سوا صور مارك سوا وجدها backgrounds وح أنا أكاي صور introduction كيسة ولا هرئيسة وحضون هذا ولا ماركايو ماركا dadka qaar inuu very important u yahay jira soo xitaa tutorialskaaga markaad dhageyso wax la muuqanayo maaha ani folder waa hide weeyaan qarsan yahay wax muuqan kara ma jiro kurti way qarsan yihiin just for the best performance gaan waxaan anaga faa'iideynaya marka sawirkaaga adaan caadi ahayn inaad qarsan karto haddii anaga bgn shuruudahaas sawirada ujeeda سمجد والصورة دوران وينو قرسين ويقرسين سمجد ما شاء الله مركا please like and share this video. Thank you very much. In the next video we'll say goodbye, share and like, okay?